wararkii soo dhacay intaynu kala maqnayn barnaamijkan kusoo qaadanaynaa arrinta Hormuz oo warar cajiib ay kasoo kordheen ayaynu ku bilaabaynaa. haddaba wargeeska la yidhaahdo Ra'yul Yawm ayaa wuxuu qoray warbixin uu leeyahay maamulka Maraykanku waxay ku dhawaaqi doonaan maanta heshiis ku meel gaar ah si dib loogu furo marinbiyoodka Hormuz. haddaba 60 maalmood ayaa waxay noqon doontaa in lagu sii kordhiyo xabad joojintii jirtay sidoo kalena loo ogolaado maraakiibta inay halkaa ka gudbaan iyagoo wax canshuura laga qaadaynin sida ay doonayaan maamulka Maraykanka. marka Trump wuxuu ku celcelinayay waa la furayaa wasiirka arrimaha dibadda waa la furayaa wasiirka kale waa la furayaa. hadda waxaa leeyahay idaarada maamulka Maraykanka waxay doonayaan maanta inay ku dhawaaqaan heshiiskaas inay ku dhawaaqaan ay rabaan. heshiiskan maanta lagu dhawaaqayo waxa uu ogolaanayaa maraakiibta inay halkaa mari karaan iyagoo aan maaragtay wax canshuura laga qaadayn oo halkaa ay iska mari karaan. laakiin mushkiladda meesha soo baxday waxay tahay waraa soo baxay la leeyahay Iiraan waxayba taagan tahay waxaan soo helnay xog ku saabsan macalinka weyn ciidamadiisii khaliijka ku go'doonsanaa ee gantaarihii wixii dhan ka dhammaadeen inuu Hormuz alaab u marsiisto rabaaba isagoo isticmaalaya maraakiibta ganacsiga. macnaha Hormuz waxaa loo furi doonaa maraakiibta ganacsiga soo lama dhin military ma la ogolo weli dagaal socde. marka maraakiibtan ganacsiga alaab inta ku soo cabaystuu rabaa inuu ku gudubsado. Iiraan waxay taagantaa wallay ka tahay meeshaan inuusan ninkaa hub marsiisanayn waxa uu u ordayo Hormuzaa la furaya wadahadallada Iiraan kula jirnaa Iiraan midaan ku dhigo gabgabtaas dhan waa soo ogaanay leedahay. filinkaana la rabaa in la gudbiyo nimankaa gantaalihii hubkiia ka dhammaaday in meeshan marka hub la marsiistaa la rabaa iyadoo la isticmaalayo maraakiibta ganacsiga. sheekadan waa cusubtaya la socda iyadana. haddaba markaan idintu soo warbixintan waxaa qoraysa jariirada la yiraahdo Al-Quds waxay leedahay Iiraan waxay sheegtay in Maraykanka uu ku raray qalab military maraakiib ganacsi isagoo doonaya inuu Hormuz marsiiyo oo halkaa ka gudbiyo. wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa waxay sheegtay in Maraykanka uu maraakiibta ganacsiga u doonayo in loo furo halkaas si uu halkaa u marsiisto qalab military oo uu ku rari doono qaar ka mid ah maraakiibtaas ee halkaa maraysa la leeyahay. haddaba ma ahana leeyahay markii ugu horeysay dowladda Iiraan ay arrinkan ka hadasho. horey waxay uga hadashay maalintii sabtida ahayd ayaa mas'uuliyiin Iiraaniyiin arrinkan ka dhawaajiyeen. laakiin maanta waxaa leeyahay si cad ayay Iiraan arrinkan u sheegtay oo ay xaqiijisay in Maraykanka uu markaa doonayo in furitaanka Hormuz uu kaga faa'iideysto in uu markaa qalab military uu gudbiyo isagoo saldhigyadiisa khaliijka raba inuu halkaa u marsiiyo maraakiib ganacsina inuu u isticmaalo. sheekadaas ma arkaysaa waa sheeko kaloo yaab la waayo. marka waxaa leeyahay sheekadan sabdigii soo bilaabatay u fiirsaya sabdigii ayaa mas'uuliyiin Iiraaniyiin ka hadlayeen. laakiin maanta waxaa leeyahay Iiraan dowladda waxay leedahay sheekadan waa sax ma dhici karto. marka maxaa imaanaya markab kastoo meesha maraya waa baarina inay dhahan haddii lagu heshiiyo xataa Soomaa Maraykan wuxuu dhihi doonaa la ima baarayo. marka meeshan sidaanay marka sidaa ahaanaysaa Hormuztan saasay ahaanaysaa wax furmay meeshaan male maalin walba sheeko cusub iyo filin cusub ay baarayo yab waayo. haddaba waa arki doonaa meel ay ku dhammaato. dhanka kale Sacuudigii wuxuu u yeeray Bakistan labada nin oo ugu sarreysay taliyihii ciidamada iyo ra'iisul wasaarihii waddankaas waa labada nin oo ugu sarreysa Bakistan. ogaada Bakistan iyo Sacuudigana dhawaan waxay saxeexdeen heshiis istifaacida waddanka labada waddan mid ka mid ah haddii la soo weeraro kan kale inuu difaacayo. marka hadda Sacuudigii Bakistan u yeertay warbaahinta xuutiga taageersan waxay leeyihiin Sacuudi annagoo jabhada uu Bakistan oo nuclear haysto noo wacala laakiin ma oga miya American ina aysan Bakistan maxay tahay
marka sheeko waa la soo baxday nimankii sacuudiga waa laaya eeraboorradii anagta lagu hayaa maanta saakii barnaamijku waa arkayseen maraakiibtoodii oo dekedoodii yumbac jooga deked sacuudiga meel u dhow jooga oo xuduuddii sacuudiga ku jira maraakiibtii ta loogu tagaa dhagta laga saaraya baxrul axmar badda cas sheekada marka yaab waa barnaamijkii saakaa kusoo qaadanay dadka aan daawan way daawan karaan sheekadaas haddaba markaan aragno warbixintan telefishinka sacuudigu leeyahay ee la yidhaahdo alcarabiya ayaa wuxuu qoray goor dhoweyd warbixino dhanka bakistaan laga helaya waxay sheegayaan shahbaas shariif oo ah ra-iisul wasaaraha waddankaas iyo caasim muniir oo ah taliyaha ciidamada waddanka bakistaan inay sacuudiga soo booqan doonaan berito inay iman doonaan haddaba marka waxaa lagu soo koobay warbixinada la helay in maanta oo arbacaa wararkaas ay soo baxeen in beri ay madaxda bakistaan tegi doonaan sacuudiga iyagoo madaxda sacuudiga kala hadli doona xiisadaha ka jira gobolka bariga dhexe iyo waanwaanta iyo ka shaqaynta dhexdhexaadnimada bakistaan halka ay waxmarsiinayaan arrinta iiraan marka waxaa leeyahay sheekada waa ra'yul caamka sheekadii loo sheegayay ee arrinta guuda ka hadlaynaa iyo arrinta iiraan laakiin waxaas ma jirtaa le waxaa laga hadlayaa xuutiga dhibaatada uu ku hayo sacuudiga waa dhaqaaqi laha markab waa u bixi laaya inuu mara iska dhaaf baabalmandabe dekadiisii yumbaca loogu tagoya meeshii dekadihii isagoo jooga oo markabkii shidaalkii ku raran yahay meesha lagu tagaa marka meesha soo mari waayeen sacuudiga marka waa ka qasata meel gooni ah nimanka ugu hagaagiysana male magaalada sancaa weerar haddaad tiraa ma dadkaa laynay maxaa samaynay nimankaan buura hoostooda ku jiraa gataalaha buura kasoo ridaan droniska buura kasoo ridaan waanaha imtixaanaysa nimankii sacuudiga qodobka ugu dambeeya barnaamijkeena labaad waxaynu kusoo qaadanaynaa magaalada camaan caasimada urdun wasiirra arrimo-dibadeed ka socda dowladaha jaamacadda carabta iyo kuwa islaamka ayaa waxay halkaa ku leeyihiin shir urduna isugu yeerad islaamow israa'iil waa ku tumatay beytkii ilaahay masjid al aqsa dadkii muslimiinta ahaa ee magaalada qudus ku noolaana dhibaatay ku jiraan maxaan qaban karnaa maxaa la qabanaa marka meeshaas maxaa laga qaban karaa oo kale israa'iil yaa wax iga qaadi karee bataaga tahay bayaan la soo saaray iyo cambaarayn iyo waxaas le waayo bayaan iyo wax la soo saaray meeshaas way u baahan tahay laleeyahy meeshaas bayaan buu u baahna haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay arrinkaa laga qoray telefishinka ruushka ee r t ayaa qoray kulan wasiirra arrimo-dibadeed oo lagu taageeraya qudus ayaa ka furmay magaalada camaan ka dhacay waxaa lagu cambaaraynayaa fiiri xadgudubyada israa'iil ay ku hayso goobaha barakaysan haddaba maanta oo arbaca waxaa ka furmay magaalada camaan shir lagu taageerayo magaalada qudus shirkaa oo ay ka qayb galeen wasiirro ka socda dowladaha carabta iyo kuwa islaamka waxaa sidoo kale lagu cambaaraynayaa oo looga hadlayaa sidii looga hortegi lahaa siyaasadaha talaabiib ee aan qaanuunka ku dhisnayn ee ay kula dhaqmayso magaalada barakaysan qudus iyo goobaha barakaysan labadaba haddaba kulankan waxaa ka qayb galay wasiirada arrimaha dibadda dowladaha carabta kuwa islaamka waxaa ka mid ah indonesia bakistan turkiga malaysia iyo xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta iyo qaar kale oo ka mid ah dowlado kale oo islaama ayaa iyaguna kulankaa ka qayb galay marka dowladihii jaamacatul carab qaar badan oo ka mid ah kuwa islaamkana waxaa ka socda indonesia bakistan turkiga iyo malaysia marka waxaa laga hadlayaa arrintaas maxaa leeyahay waa la cambaaraynayaa siyaasaadka aan shuruucda ku dhisneen ee arrimaha goobaha barakaysan xadgudubyada lagu hayo waxaasaa marka meesha loo tagaaleey barnaamijka waa naga intaa asxaabay inta aan mar kale kulmayno haddii warar kale ay soo kordhaan waxaanu kusoo gudbin doonaa barnaamijka iyagaa soo geli doonaa waxyar kadib ee habeennimo inta aan mar kale kulmayno laagareeya oo sheergareeya haddii alla idmo kulan dambe nabadgelyo